salaan kadib waxaan rabaa saddex qodob inaan ka hadlo. mid waa isku soo baxan iyo ducadan beesha ay isugu timid. ducada beesha ay isugu timid cadal wax kala maaha, xumaanna maaha, cid lagu xumeeyeen. colaadda ka hor beeshan waxay gaartay go'aan inay isku timaado xarur xaajaa isugu tahay saddex biri ay meel fadhido. colaadaa dhacday, waqtigii ballantana waa la gaaray. waxay marka beesha go'aansatay hal maalin oo fagaaro oo cadaa in la sameeyo. taas waa mid sababta loo sameeyay waxay tahay بريان سوق وحاسوق إيمان للضوبة باش أبقى إن تصل إني عضلة أمانت هاي أي نبت هاي أو إيمان للضوبة كان تصل جدات تاسك الله ومد طلبات وحالة ده إيمان على الضوبة إيمان وعدغل حد وحا مغلين أو مقدسك مغلين وحوالي من سياسيين إني لا إيمان عن ضوبة هنا دغنا كانوا أنا الضغوط أبقى أنا أهي هدي جكو هدي وعكسة duqod abgaara nin ka soo dhalinyaro ahay hadana duqod abgaara ahay heer imaano waxay noo soo jeediyeen inay maxamed yuusuf imaan kalsooni ay ka naqdeen maanta kadib oo qaabileen anigana waa u qaabilay anana waa aqbalay aniga waa u aqbalay anoo duqod abgaara waa aqbalay waana qaadna maanta kadib maxamed yuusuf imaan warkiisa ma jiro cid aqbalaysana ma laha tan imaan duubida nimanka siyaasiyiinta waxaan leeyahay duubka imaanka marka la duubaayo waa inay duqooda abgaar ogaataa waa in imaan raali laga oo ahaada waa imaan dhaqanka marjada in la marsiiyaa waa imaan naqda in lacag lagu duubaa imaan siyaasadeed fiiri imaan siyaasadeed beesha abgaar dhibka u gaartay cid kasta fahmi kartaa hadda siyaasi xumo wuxuu keenay anaga aqbali ma doono dhaqanka abgaar ee suuban ee duubka ninka ay keenay lacag lagu duubaa anaga qaadan doona taas waa mid tan kale beeshan dawladda mucaaradku ma aha hirshabelle iyo dawladda kulli waa raxsanta ma dhihi karo muxaafadna mucaaradna maaha sabab idin sheega waxa waa Soomaali 4.5 waay waxa waa awood qaybso waxba la qaybsadaa beesha xaqay leedahay la duusiyay xildhibaanimo la duusiyay wasiir la duusiyay agaasiin ma la duusiyay waxa la ergada la duusiyay waxa soo markii la duusiyay haddana sheekada waxa waa dagaalada inta ka dhacay dagaal siyaasadeed waa ma dagaalo herbaadiye ay isku haystaan jirjiri maaha waa dagaalo siyaasadeed لمن سياسة تقول عن وضع أكثر بيان دولة مركو عن شيءنا لمن سياسيين لك تحوش شيئان إن لك تكلم حكومة غش بس أقول كذا إن أي مغشة باقي عودرين أي مغشة بس أم بلنا بدأ أضواء وحين أقولش إن لو وضعنا هذا أصلا والله ولا هذا وحان ربا هيرسبل الدولة اللي حين أقعدان إن بس أم بلنا أي تاي هل لقوا وحلوش شيء ما لك تكلم إن تكلم مغشة هو ده يسوته وحان كلو كباقة nabadaan ku baaqa ana duqaanahay duqna wuxuu ku baaqaa nabad waxaan u baaqaa dadka deegaanka degan nabad inay ku noolaadaan nabad wax ka fiican male ilaahay wuxuu dhahay amni salaama haddii nabad la helo nool la helaa amniga waa fiican yahay inuu qof dhinta raalli ka manin laakiin waxaan rabnaa dawladda inay ogaato u kuur gasho bugtada meesha ka jirta inay ogaato meeshaan waxaa maanta la isugu yimiday oo taariikh dheer la garan karo walax sanadkiiba mar la yimaado oo laga caado dhigtay oo ummadda Soomaaliyeed ambase ummadda nafleyda ay garan karto aan isugu nimiday waana lagu guuleystay alxamdulillah intii ummada ee amba maqashay amba joogtay kor Allah ugu dhigaan leena intaas hadii laga gudbo waxaan ummadda u baaqaynaa aan wax dhibaato meeshan kuma jiraan laga mana qabo waxyaalo bitaamaho laba beelood ka dhacay waa jiraan ilaahay maslaxad oo keenan leena intii ku dadaasha kana tala gashan ajir Allah ka siiyaan leena anuguna wax allaala wixii maarata karaan kaanya nabadaan u jilbalaabanay diyaarna waa u nahay horena waa ugu ahayn haddana waxaan ugu baaqaynaa adduunka ugu baaqaynaa inaad saaciba nabadda u jilbaxeydana intaas kadib saacadan waqtiga oo joogo 11 saac iyo 20 waxaan rabnaa meeshan waxaan isugu nimiday ziyaaro sanadkiiba mar la dhigo dadku waa iska war xumo tashiil badan yahay
waxaan leenahay ziyaaran isugu nimid annaga meeshaan oo sanadkiiba mar la dhigo wax kaloo dhiba ma jiraan waxaan rabnaa oon kaloon ku baaqaynaa abgaal ismaan dhexdiisa in ilaahay wixii khilaafka dhex jira uu nabad ka naadiyo waxaanna soo dhoweeyeynaa haddaan nahay beesha meeshaan taagan wax alla wixii islaama ama maaragtay ummada nabadda ay wadaan gacmahan u dhigaynaa walaalaha xoogaa maaragtay oo abtiyaal iyo abkow iyo abooto iyo eebbow leesu yahay khilaafka dhexdhexda waa nolama qurxoona waxaan leenahay masaalix khayr qabta alla dhex dhigo waxaan rabnaa oon intaan rabnaa meediyahan inaan uga faa'iidaysanno ilaahay inuu islaamkaas uu dhex dhigo islaax baynanaas uu dhex dhigaan rabnaa intii muslimahoo ilaahay uu ku soo dejiyana waxaa beesha mahan taagan waxay rabtaa inay soo dhowayso ay wixii ka aadan oo karaamkeeda ay maarata ka qaadato waxaan kaloon rabnaa oon ku baaqaynaa nabad oon ku baaqaynaa dadka ehelka iyo qaraabada iyo walaalkaan ugu baaqaynaa kama dhammin haddaanay isugu imaan waana walahaan isaga garannay adduunka wax u kacana waaye oo wanaaggeeru u kacay soo hugaanay hidhaahdaan hubkaan hidiya dhaqamaan soo hugaanay hidhaahdaan hubkaan hidiya dhaqamaan la yidhaah waa walahaan wax ka baran gobolka iyo degmada tuuladda meel allaala mihin la geeya waa meel anfacaysa haa hubkan hidiya dhaqamaane usoo hugaanay hidha walabaaba ku tuse ciyaartanaa waa mid hadda lahaay waa mid heerka anfacaysa heerkaan aqaanin ma yaqaan heerka yaqaana cayaar ka wanaagsan ma jirto adduunkaa laga dayaa waxaa la aadi jiray baarlamaanyada markii lagu cayaari jiray dawladdu halbahalow ka horreeye kii aan noogu horreeyey oo wanaaggiisa haysan jirnay hidiya dhaqamaan tegi jirnay cadalaan tegi jirnay gobolka degmada xamaraa ugu xageeyey gobolladaan tegi jirnay meel oono waa kala hernay haddaan kala hernay berigaad nagala kulanteen waa hidiya dhaqamaan hubkaan u soo hoganna hiiradaan middaasaan ku idhi middaad maqlaysana waaba maqlaysaa nabad dawlad dalka hana taa soo socota haddana joogtee dawladda loo diibada baaxa 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 kiisaya duqadaradaarankiisaya uqadaradaarankiisaya anunku dadweynihiisii anoho anunku dadweynihiisii anoho dooxiisa waa la dujiyaa dooxiisa waa la dujiyaa dooxiisa waa la dujiyaa dooxiisa waa la dujiyaa